kula wanaagsan khiyaar ku soo dhawaada wararkii ugu dambeeyay bariga dhexe warar cusub oo ka soo kordhay wada hadaladii Mareykanka iyo Iiraan ee ka socday dalka Pakistan ilaa iyo hadda qodobada laga wada hadlay waxyaabaha ugu muhiimsan ee dhacay ayaan idila wadaagaya Iiraan waxay ka hortagtay qiyaano u la damacsanaa Mareykanka kadib markii markab dagaal uu dhaqaajiyay dhinaca gacanka Hormuz ma waxa uu rabay farsamo iyo sidoo kale dabcan in uu Iiraan uu qiyaameeyo mise waxyaabo kale ayaa jira waxyaabihii ku dhacay iyo siday wax u dhaceen oo dhan ayaan idila wadaagaya Trump waxa wali uu ku faanayaa inuu guul ka gaaray dagaalka Iiraan isla markaana uu burburiyay awoodii militariga Iiraan iyadoo ay socdaan markaasi wada hadalada waxyaabahaasi iyo waxa ku sababaya xilligan inuu Trump uu hadlo Israa'iil dib ayaa loogu celiyay mid kamida waqtiyadii ugu adkaa ay soo martay intii uu socday dagaalka gobolka bariga dhexe ee dabcan soo bilowday 28 bishii labaad ee sanadkan waxyaabahaasi iyo xogihii ugu dambeeyay wixii dhacay macluumaadkaasi ayaan idila wadaagayaa duqeymihii dhacay soo dhawaada marka hore muuqaalkan like saara share gareeya gaarsiiya saaxiibadiina kale ee baraha bulshada ka mid noqo saaxiibada ku xiran barahiga bulshada ee Tawakkal Media aad baad u mahadsantiin nagu soo biro ka mid noqo aan ku bilaabay waa 11 bisha Abriil sanadka 2026 waxaan tabintan idin kula wadaagayaa guud ahaan waxyaabihii ugu dambeeyay ee bariga dhexe wada hadalada ayaan ku horeynaynaa kadibna waxaynu eegaynaa waxyaabihii kale ee dhacay iyo farsamooyinka iyo waxyaabaha soconaya duqeymaha dhinaca Israa'iil iyo Hezbollah Lubnaan maxaa ka dhacay waxyaabahaas oo dhan waynu eegi doonaa waxa si rasmi ah u bilowday wada hadaladii saddex geesoodka ahaa ee markaasi u dhaxeeyay dawladda Iiraan Mareykanka iyo Pakistan kuwaasi oo ka dhacaya dalka Pakistan kulamadan ayaa ah kuwa toos ah oo ay dhinacyadu foolka fool ay markii ugu horeysay markaasi isku hor fariisteen ujeedaduna ay tahay in lagu xalliyo xiisadaha ka taagan gobolka iyo sidoo kale arrimo kale oo la xiriira amniga iyo siyaasadda iyo qodobada ay dhinacyadu isku hayaan kulankan ayaa waxa uu markaasi uu ka dhacay hotelka lagu magacaabo Serena Hotel halkaas oo horey ay ugu kulmeen madaxweyne ku xigeenka Mareykanka iyo sidoo kale ra'iisul wasaaraha Pakistan Shehbaz Sharif amaanka caasimadda wadanka Pakistan ee Islamabad ayaa si weyn loo adkeeyay taasi oo sababtay in saxafiyiinta loo xadeeyo aag gaar ah oo warbaahinta loogu talagalay halkaas oo ay ku sugan yihiin saxafiyiin kala duwan oo dunida oo dhan ka yimid macluumaadka ay helayaan wariyaasha ayaa ah mid xadidan maadaama hotelka ay dabcan xogaha u jiraan ay ka fog yihiin wada hadaladu ay ka dhacayaan inkastoo xogaha haddana ay ka helayaan ila kala duwan oo markaasi dhinacyada wada hadaladu u dhaxeeyaan waa Mareykanka iyo Iiraan iyo sidoo kale Pakistan oo ah markaasi iyadu dhaxdhaxaadiyaha markaasi wada hadalkan waxana dhinacyadu ay si toos ah markii ugu horeysay isku hor fariisteen wararka hordhaca ah ayaa sheegaya in dhinacyadu ay diiradda ay saareen sidii loo gaari lahaa heshiisyo wax ku ool ah oo markaasi yareynaya khilaafaadka isla markaana kor loogu qaadi karo iskaashi dhexmara markaasi labada dhinac wakaaladda wararka Reuters oo soo xigeenaysa ila Pakistan ayaa waxay sheegtay in wada hadaladu ay dhaceen markaasi si waji to waji ah oo dhinacyadu si toos ay isku hor fariisteen oo hal goob ay isugu yimaadeen dhinaca Mareykanka wada hadaladan waxa ugu qayb galaya ugu sareeya madaxweyne ku xigeenka iyo sidoo kale wakiilka Mareykanka ee gobolka bariga dhexe dhanka Iiraan waxa matalaya gudoomiyaha baarlamaanka wadanka Iiraan iyo sidoo kale wasiirka arrimaha dibadda Iiraan Pakistan waxa u fadhiya dhankeeda oo markaasi dhinacyada u kala gar qaadaya taliyaha ciidamada wadanka Pakistan telefishinka Iiraan ayaa sidoo kale wuxuu sheegayaa in xubno ka tirsan gudiyada dhaqaalaha militariga sharciga ee Iiraan ay ku biireen qolka markaasi ay xubnahoodu ka degan yihiin Islamabad halkaasi oo ay talooyin kala duwan ay ku qaadanayaan waqtiyada nasiinada sidoo kale wakaaladaha wararka ee Iiraan ee Paris iyo sidoo kale Tasnim waxay sheegayaan in horumar laga sameeyay wada hadalada isla markaana la dhimay weeraradii ka socday dhinaca markaasi dowladda koonfureed ee Beirut arintaas oo Iiraan ay horay shuruud ugu dhigtay ka hor inta aan la bilaabin wada xaajoodka marka taa laga yimaado waxa soo baxaya marka xogo kale iyo macluumaad ku saabsan wada hadalladii ugu horeeyay waxa uu qaatay muddo 2 saacadood ah oo ay dhinacyadu si toos ah markaasi ay isku hor fariisteen isla markaana ay ka xaajoodeen qodobada kala duwan Iiraan ilaa iyo 10 qodob ayay miiska la tagtay sida xoguhu tilmaamayaan Mareykankuna ilaa iyo 15 qodob gaaraya ayuu miiska la tagay oo ay dhinacyadu markaasi ay si rasmi ah ay kaga wada hadleen waxana labada dhinacba dhaxdhaxaadinaya markaasi dawladda Pakistan
xoguhu waxay intaasi ku darayaan in wada hadallada u socdo Mareykanka iyo Iran ee ka soconaya magaalada Islamabad ee dalka Pakistan ay u muuqanayaan kuwa markaasi dabcan u baahan inay sii socdaan wufuuduna ay sii joogi doonaan si dhinacyadu ay wada hadallada u sii socdaan isla markaana qodobada miiska saaran ay kaga sii wada xaajoodaan taa markaynu ka nimaado madaxweynaha Iran Mas'uud Pezeshkian ayaa wuxuu sheegay in wafdiga markaasi Iran ee ku sugan dalka Pakistan ay si buuxda diiradda u saarayaan ilaalinta danaha qaranka Iran xilli ay markaasi qodobo muhiim ah miiska ay la tageen oo ka wada hadlayaan wuxuu xusay in wafdigaasi oo markaasi uu ka howlgalaya ama uu wada dadaal xoogan isla markaana ay si geesinimo leh ay u galeen wada hadallada wajigii goobaad gorgortan ay miiska ay la tageen qodobo adag geesta kale madaxweynaha Mareykanka Donald Trump ayaa waxa uu u muuqdaa nin booteynayo oo guulo waaweyn markaasi wuxuu ka sheeganaya dagaalkii Israa'iil iyo Mareykanku ay la galeen Iran Donald Trump ayaa markale qoraal oo soo dhigay baraha bulshada gaar ahaan barta Truth Socialka waxa uu si dheer u kaga hadlay arrimo badan waxaana uu ku celiyay in Mareykanku uu burburiyay militariga Iran oo ay ku jiraan dhammaan ciidamada badda iyo cirka iyo waxyaabo kale uu sheegay uu kamid yahay inay dileen hogaamiyihii ugu sareeyay markaasi dawladda Iran marka aynu ka nimaado Trump oo guulaha ka sheeganaya dhinacaasi haddana Iran waxa ka soo baxaya warar ku saabsan inay iyadu wali si fuula gacanta ugu hayso oo ay maamulayso gacanka Hormuz wakaaladda wararka Tasniim ayaa oo soo xiganaysa mas'uul sare oo ka tirsan militariga waddanka Iran ayaa waxay sheegtay in wali Tehran ay si adag u adkeynayso aysan u ogolaan doonin in ay wax markab ah oo ka gudbo marinka Hormuz iyada oo aan fasax rasmi ah laga haynin dawladda Iran mas'uulkan waxa uu sheegay inay Iran ay go'aansatay in aysan u ogolaan doonin marinkan markab markaasi ka gudbo Hormuz haddii aanan la siinin ogolaanshiyo uu ka helo dhinaca Iran aynu ka nimaado taas Mareykanka waxa uu rabay farsamo inuu ku sameeyo Iran ama qiyaano weyn taasi oo ahayd kadib markii mid kamid ah maraakiibtiisa dagaalka ee ku sugnaay xeebaha dalka Cumaan uu dhaqaajiyay dhinaca gacanka Hormuz waxa leeyahay Iran ayaa markiiba xogta ogaatay Iran hajabaad iyo digniin ayay soo saartay Pakistan ayay la hadashay oo hadda labada dhinac dhexdhexaadinayso waxayna tiri haddii markabka dagaalka Mareykanka uu wax yar soo dhaqaaqo waynu weerari doonaa mas'uuliyadana waxa qaadi doona Mareykanka markiiba waxa dabcan lagu qasbay markabkii dagaalka Mareykanka inuu dib ugu laabto halka uu ka soo dhaqaaqay oo markaasi xeebaha wadanka Cumaan taasi oo ka dhigan inay Iran ay ka hortagtay markaasi qiyaano weyn ama farsamo weyn oo Mareykanku uu la damacsanay markaasi Iran waxa la leeyahay xogo iyo macluumaad kala duwan ayaa ka soo baxay falanqeeyaashu waxay leeyihiin Mareykanku wuxuu rabay inuu ku dhawaado marinka Hormuz halkaasi uu dabcan markabkiisa uu tago iyadoo ay Iran wali si rasmi ah u maamulayso guud ahaanba gacanka Hormuz Mareykanku waxa muuqanaya inuu wali isaga iyo Israa'iilba dhinacna ay wada hadalka uu ka wado dhinaca kalena haddana uu ciyaaraya farsamooyin iyo taatikooyin laakiin Iran waxa la leeyahay oo ay falanqeeyaashu leeyihiin waa niman taxadar badan oo arrimahaasi oo dhan si dhow ayay ula socdaan ugu dambeyn haddaynu eegnana Israa'iil ayaa wajahday mid kamid ah duqeymihii ugu adkaa markaasi maalmihii dagaaladu ay socdaan iyadoo oo duqeyn culus oo ilaa iyo 12 goobood oo ku yaala waqooyiga Israa'iil weerar lagu qaaday saacadii ugu dambeeyay weeraradan waxa fuliyay ururka Xisbullah ee ka dagaalama dalka Lubnaan warbaahinta Israa'iil kana 12 ayaa sheegaya in maanta Xisbullah ay riday ku dhawaad 30 gantaal iyo 5 diyaaradood oo aan duuliye lahayn oo drones ah kuwaasi oo ka dhacay waqooyiga Israa'iil dhacdadan waxay imaanaysaa xilli ciidamada Israa'iil ay sii wadaan duqeymaha xooggan oo ay ka geysanayaan gudaha wadanka Lubnaan kuwaasi oo sababay khasaare badan oo naf iyo maalba leh gantaalo iyo diyaarado aan duuliye lahayn oo drones ah ayaa lagu weeraray Israa'iil kuwaasi oo ku dhacay meelo kala duwan oo waqooyiga Israa'iil sida warisay warbaahinta Al Jazeera khasaare kala duwan ayaana ka soo gaaray Israa'iil dhanka Xisbullah ayaa bayaan ay soo saareen waxay ku sheegtay inay fulisay 23 weerar oo lagu bartilmaameedsaday xarumo ciidan gaadiid iyo saldhigyo militari oo Israa'iil leedahay ururkan ayaa wuxuu sidoo kale u sheegay inay weeraradan ay yihiin kuwa ay ku difaacayeen Lubnaan isla markaana jawaabi u ahaayeen jabinta heshiiska xabad joojinta ah ay ku eedeysay Israa'iil oo ahaa duqeymihii ugu dambeeyay oo Israa'iil ay ku qaaday gudaha wadanka Lubnaan dhanka kale Israa'iil ayaa waxay sheegtay in 24 saac gudahood ay ku duqeysay 200 oo bartilmaameed
oo ay markaasi xisbullah ay ku leedahay dalka Lubnaan war qoraal ay soo saartay waxay ku sheegtay in ciidamada cirka ay qaadeen weeraro hor leh oo ay markaasi taageerayaan ciidamada dhulka kuwaasi oo ka dhacay gudaha wadanka Lubnaan isla markaana ay ku weerareen goobo kala duwan oo ururka halkaasi uu ku lahaa wasaaradda caafimaadka dalka Lubnaan waxay sheegtay in 6 qofood lagu dilay weerar ka dhacay koonfurta Lubnaan iyadoo oo 5 kaleetana lagu dhaawacay xaaladdu wali ma sahlana wixii warar ka soo kordha xaaladda gobolka bariga dhexe wada hadallada iyo duqeymaha kale ee ka soconaya dhinaca Lubnaan iyo Israa'iil halkan ayaan idin kula wadaagaya